dagaal siyaasadeed la waji cusub ayaa abaabulkiisa laga wadaa magaalada Nairobi waa isbahaysi cusub ay yeelanayaan labada kooxood ee daljiri damal jadiid waxaana warar hor dhacay sheegayaan in qalinka lagu duugay xisbi cusub ay ku midoobayaan oo gudoomiye noqon doona madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ujeedka midowga labada kooxood ma ah mid ay ka dambayso siyaasad qoto dheer oo aragti fog leh balse waa sida ay ku wiqi lahaayeen dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo iyo sida local dantalla xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre labada kooxood waxaa muddo dhex yaalay xifaaltan siyaasadeed iyo dagaalo dhinacyo badan oo loo galay doorashadii 2016 markan abaabulku uu ka duwan yahay wajidii hore waxaa la adeegsanayaa dhaqaale iyo warbaahinta si loo marna habaabiyo raayul caamka dadka Soomaaliyeedna looga dhadhiciyo in dawladdu fashilantay abaabulka daljir iyo damal jadiid waxaa markan gaashabuur kula ah dawladda Imaaraadka Carabta oo dhaqaale xoogan ku bixinaysa sidii xilka looga tuuro lahaa Ra'iisul Wasaare Khayre si inta hartay loo abuuro xasiloon darro siyaasadeed oo ay kooxaan ka macaashi karaan xisbiga daljir waxa uu soo jeediyay in lagala shaqeeyo sidii loo soo waafajin lahaa siyaasadda dawladda Turkiga ee Soomaaliya iyo tan Imaaraadka Carabta oo aad isu diidan gudoomiyaha xisbiga daljir xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud ayaa hawshan loo xil saaray inuu talooyin uu ka keeno maadaama xisbigiisu uu janjeeray dhanka Turkiga haddana aan laga fursanin in Imaaraadka la kaashado si loo damiyo tiirarka dawladda ku taagan tahay arrimaha xisbiga cusub magacu yeelanayo xubnaha fulinta si loo kala qaybsanayo istaraatiijiyada 2020 ay doorashada ku galayaan waxa loo xil saaray inuu ka shaqeeyo wasiirkii hore cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir wallahi warbaahinta iyo kicinta waxa loo aasteeyay inay ka shaqeeyaan xildhibaan uu hogaaminayo Axmed Macalin Faqi ololahan ayaa waxa loo adeegsan doonaa baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha si bulshada iyo dawladda la soo horkeeno halka taliyay hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Sanbuloosh loo dhiibay galka isku xirka dawladda Imaaraadka Carabta iyo xisbiga cusub haatan la yeelayo inkastoo doorashada dalka ay ka dhiman tahay ku dhawaad 2 sano iyo bar haddana midnimada dawladda haatan jirta iyo wada shaqeynta madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha iyo gudoonka labada aqal waxay keentay walaac xoogan oo ay ka qabaan kooxaha danleyda siyaasadda qaar ka mid ah xubnaha kooxdan hormuudka ka ah waxay qabaan in hanaanka doorasho ee dalku yeelanayo oo ah in qof iyo cod la gaarsiiyo dalka uu meesha ka saarayo hanaankii oda dhaqameedyada sidaasna ay halis ku gali karaan kuraastooda sanad iyo bar kadib dawladdan waxa ay jirtay caqabado iyo taakooyin badan oo loo dhigay balse waqtiga ayaa sheegi doona halka ay saldhigata xaajadan ugubka ah ee xilligan lagu maleegay magaalada Nairobi